kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal markastoo aad dunida dacallada ka joogtaan halkan waa rugta TV oo aad nagala socotaan daawadayaal waxaan barnaamijkeena maanta kusoo qaadan doonaa fanaanada caanka ah ee Xamda Queen oo ahayd fanaanad hore uga baxday fankana shaacisay waxaanu eegi doonaa arooskeeda iyo meherkeeda goorta u dhacayo iyo sayga cusub ay guursatay ee lagu magacaabo Marwan. Fanaanada ayaa baryihii ugu dambeysay waxay ka maqneyd saaxadda fanka halkaasi oo ay sheegtay inay fanaanadu gebi ahaanba iskaga baxday fanka kadib markii ay wareysigii ugu dambeeyay ay siisay idaacad laga leeyahay dalka Mareykanka gaar ahaan tan loo yaqaano VOA-da. Fanaanada ayaa ahayd fanaanad runtii aad loo jecel yahay baraha bulshada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna ay aad u xiiseyn jireen. Hase ahaatee muddo ka bacdi waxaa la sheegay in fanaanada sababihii ay uga baxday fanka inuu ahaa nin ay isjeclaayeen oo gebi ahaanba ka codsaday inay fanka iskaga baxdo nolosheedana uu kafaalo qaadi doono. Hase ahaatee waxaa lagu soo waramayaa in ninkii ay nolosha ku wadaageen ama ay ballameen inay isfahmi waayeen oo ay kala tageen kabacdina ay hadda guursatay wiilkan lagu magacaabo Marwan oo ah wiil isteelada iyo maryaha xayeysiiya. Waxaana la filayaa maalmaha soo socda in magaalada Hargeysa uu arooskeeda ka dhici doono. Xamda Queen ayaa ka mid ah xidigaha fanaaniinta Hargeysa taasoo ay ku jirto xidigaha Hargeysa. Fanaanada ayaa kasoo shaac-baxday gudaha Hargeysa halkaas oo ay kooxda xidigaha geeska in badan ku jirtay. Fanaanada caanka ah Xamda Queen arooskeeda ayaa waxaa laga dareemay gudaha Hargeysa halkaas oo la filayo in maalmaha soo socda arooskeeda gebi ahaan iyo meherkeeduba uu ka dhaco magaalada Hargeysa ee ah caasimadda Somaliland. Fanaanada caanka ah ee Xamda Queen ayaa ah shaqsi runtii aad saameyn ugu leh bulshada waxaanay haysataa taageero kala duwan oo aad u fara badan waxaana ka mid tahay fanaaniinta aadka u quruxda badan leh ee ku jira fanka Soomaaliyeed marka la eego fanaaniinta walow ay shaacisay in gebi ahaanba ay iskaga baxday fanaanada. Waxaana hadda aad iyo aad u soo dhacaya hambalyada arooskeeda waxaana ka mid ah fanaaniinta hadda hambalyada soo diray gebi ahaanba fanaanada caanka ah Khadra Cabdi Silimo. Fanaanadii hore ee caanka ahayd ee Xamda Queen ayaa waxay dadku ku sheegaan inay ahayd fanaanad runtii aad iyo aad u wanaagsan shakhsiyadeeda marka la eego xagga fanka waxaanay ku jirtay fanaaniinta ugu wanaagsan fanka Soomaaliyeed. Waxaana kaalinta koowaad hadda ku jira fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo taas oo shacbiyad weyn ku haysata guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Guurka fanaanada caanka ah ama fanaanadii hore ee Xamda Queen ayaa gebi ahaanba la soo dhaweeyay waxaana socota hambalyada oo iska soo daba dhacayso oo meel kasta la soo geliyay fanaanada caanka ah iyo saygeeda Marwan kaas oo lagu magacaabo. Waxaana lagu arkayaa baraha bulshada sawiradooda iyaga oo aad loogu hambalyeynayo guurka ay isguursadeen lamaanayaashan qarniga ee Marwan iyo Xamda Queen. Waxaanu eegi doonaa arooska soo socda iyo meherka goorta uu dhici doono waxaana idila wadaagi doona wixii macluumaad ee ka soo kordha. Waanaad ku mahadsantihiin daawashada channelkeena fadlan sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga.